sidii aad la wada socoteen daawadayaal xiisadda siyaasadda Soomaaliya ayaa cakarneyd maalmihii la soo dhaafay balse maalinnimadii shalay ayuu isbedel ku yimi kadib markii ra'iisul wasaare Rooble iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada Soomaaliya ay sheegeen inay ka tanaasuleen muddo kordhintii loo sameeyay xukuumadda federaalka Soomaaliya. haddaba arrimahaasi iyo arrimo kale ayaa waxaa khadka Skype-ka ee magaalada Muqdisho si toos ah haatan ugu jira Maxamuud Xaamud Badle oo isagoo ah aqoon-yahan ka faallooda arrimaha Soomaaliya. Maxamuud soo dhawow, bal waxaad nooga warantaa isbedeladani ku yimi siyaasadda Soomaaliya. Waadhawahay bismillaah runtii sidaynu ognahayba maalmihii la soo dhaafay siyaasadda Soomaaliya guud ahaan waa cakarneyd waxaweye magaalada Muqdisho inta badan waxaynu ognahay inay tahay muraayadda iyo waxaweye madaxa ummadda Soomaalida meel walba joogtoona ayna tahay halka ay dowladnimadu ay ka ambaqaado oo mataqaana laga shaqeynayo magaalada Muqdisho gudaheeda ayaa waxaweye wax ka socday dhiilo colaadeed iyo waxaweye wax uu dagaalo sokeeyay iyadoo oo ay ciidamada oo dawladda qaarkood oo kala jaban kuwa mucaaradka dharkooda ka soo jeeda ha ahaadeen kuwa ciidamada hadda ka tirsan iyo kuwa hore uga tirsanaan jirayba laakiin guud ahaan waxaa is horfadhiyay magaalada dhexdeeda isku horfadhiyay waxa ahaayeen ciidamada dawladda shalay waxay ahayd qax bay ahayd markii waxaweye casaradii ay war wanaagsan uu ka soo baxay dhanka waxaweye xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo maamul goboleedyada Galmudug Hirshabelle iyo waxaweye Koonfur Galbeed ay soo saareen in waxaweye ka tanaasuleen muddo kordhintaas oo ay wadanku u jihaysto doorashada laguna noqdo heshiiskii 17 September warkaas oo ahaa war wanaagsan oo dhagaha dadka Soomaalida meel walba ay joogaan farxad geliyay anigaygan idila hadlaya xaafadaha iyaga waa laga qaxay warkaasi markuu soo baxayna dadku war farxad leh ayay qaleen dib bayna guryahooda qaarkood usoo noqdeen magaaladana inta badan isku socodku si fiican buu furmay nabad baa naas la duugale oo dee runtii saxansaxada nabad ayaa markiiba magaalada soo noqotay iyo diilada bulshada guud ahaanna waxaweye xitaa xabadda xalay la maqlayay waxay ahayd mid dabaaldega oo ay bulshada ugu dabaaldegaysay waxaweye nabadii dhanka mucaaradkuna way soo dhaweeyeen wada hadalladaas iyo waxaweye warbixinada ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo maamul goboleedyada iyadoo xafiiska madaxweynahuna ay qoraal soo saareen ay sheegayaan in madaxweynuhu bulshada la hadli doono xalay fiidnimada xalay marka inahaasi waxay ahaayeen isbedeladii iyadoo xaalad dhiila lagu jiro isla markiiba in qodobada soo baxay ay magaalada iyo dalkaba ay nabad ku hogaamiyeen maxamuud sidii aad la socoteen dadweynuhuna ay wada daawadeen madaxweyne Farmaajo wuxuu la hadlay shacabka habeennimadii xalay marka khudbadaasi uu jeediyay ma ahayd tii laga filayay madaxweynaha oo ay ku wada qanci karaan dhinacyada siyaasadda Soomaaliya runtii waxaweye khudbadda madaxweynuhu waxaweye bulshada guud ahaan way wada sugaysay guud ahaan bulshadu sidii ay ka sugaysay madaxweynaha oo sidii xafiiska ra'iisul wasaaraha ka soo baxday uma ekeen waxaweye inaan shuruud la'aan in maaragtay lagu saxiixo heshiiskii kolley waxbaa la isku hayay waxay ahayd in maaragtay hadalkiisu uu ku jiro in macnaha uu heshiis diyaar u yahay noocu doona ha noqdee waxaweye in waxaweye baarlamaanka uu yidhi waa ku noqonayaa baarlamaanka markuu ku noqdana waxaweye xaaladdu say doonto noqon karto markaa kulanka baarlamaanka ee madaxweyne Farmaajo uu ku baaqay in golaha shacabka uu kula noqonayo maxaa laga filayaa baynu odhan karnaa wararka maadaama Muqdisho ku sugantay xaaladda siyaasadana aad si dhow ugu dhuun daloosho runtii kulankaas laba waxba waa laga filan karaa baarlamaanku xaaladda dalka way ka warhayaan waxa la isku haystana maalintii dhawatiijiga aan siiyay ah labada sano oo dadku bulshadu inay heshiis ku ahayn oo sanadkan 4 sanoba in doorasho ka dhacday heshiis lagu ahaa in ay markaa ay wadada laba midun inay wada geesinimo la qaataan iyo inay dee xaaladda hadda lagu jiro lagu sii jiro wararka qaar baa waxay sheegayaan in la leeyahay ra'iisul wasaare Rooble xilka ayay ka xayuubin doonaan lama hubo laakiin dee waxaweye hadday taasi ay dhacdo xaaladii hadda lagu jirin un baa lagu sii jirayaa marka baarlamaanku inay xaaladaha meel kale magaalo kale iyagoo fadhigooda maaha xaaladda magaalada ay ka jirto bay fadhigoodu yahay marka inay xaaladii iyagoo dareensan ay bulshadii u hiiliyaan waxaweye madaxweynuhuna markuu ku noqdo
in loo noqdo waxa weeye doorashada dadbaneyd lagu heshiiyey waxa weeye waddanka xalka u ah oo bulshadoo dhan ay leedahay doorasho waddanku ha galo doorashada dadbana ha loo noqdo oo heshiiskii 17 September iyadoo waxyaabaha la isku khilaafsan yahay ay tahay in laga heshiiyo xaaladaas la sheegayo oo ah in ay problem ka qaadaan oo maanta wadadaas waxa weeye waddanka xaaladiisa aan wadada wanaagsan aan ku ridayn inay qaadaan iyo inay qaadaan wadada wanaagsan ah in doorashadii la isla qaato oo nabadii xalay magaalada bulsho waxa weeye lagu jiray wixii keenay waxay ahayd sulxiga iyo heshiiska iyo waxa weeye wada hadalka iyo waxa weeye waraaqaha ka soo baxay xafiisyada kala duwan ee nabadda ku baaqay marka inahaasaan isleeyahay in laga filan karo labada aqoon waa hagaagkaasi waxa uu ahaa maxamuud xaamud bedle oo ah aqoon-yahan u dhundaloola arrimaha siyaasadda Soomaaliya khadka Skype ee magaalada Muqdishona toos iigu waramayay xaaladihii ugu dambeeyay ee siyaasadda Soomaaliya wixii warar ka soo kordhana daawadayaal waxaad kala socon doontaan telefishinkan Saab TV